السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل هذا برنامج كيني فلقينتا شخصيات كعنكا maanta waxaan idin رومان رايس magaciisa rasmiga waxa loo yaqaan Lieti Joseph Anoya wuxuu dhashay bishii May 1985 waa 3 sano jir u dhashay wadanka Mareykanka gaar ahaan gobolka Tampa ee magaalada Florida wuxuu musaaracada soo galay 2008 wixii inta ka horeeyna wuxuu ahaa ciyaaryahan ciyaaro kubadda cagta wuxuuna ciyaari jiray horyaalka caanka loo yaqaan Canadian Football League Soccer 2008 wixii ka dambeeyay waxa loo ogolaaday inuu ku sabiro ciyaaraha WWE maaniska ama kuwa ragga inuu ku biiraayo loo ogolaaday wuxuuna 2012 si rasmi ah u soo galay ciyaaraha musaaracada WWE waqtigaas oo la socon jiray laba nin oo la oran jiray Dean Ambrose iyo Seth Rollins Roman Reigns wuxuu leeyahay hal xaas waxaana lagu magacaabaa Galina Baker ayaa lagu magacaabaa waana gabadha Galina Baker ayaa lagu magacaabaa iyadoo sidoo kale iyaduna waa gabadh American waa gabadha imika sawirkeeda aragtaan wuxuu kale leeyahay Mr Roman Reigns wuxuu leeyahay saddex caruur ayuu leeyahay sidoo kale wuxuuna Roman Reigns musaaracada ku guuleystay suunkiisa ugu horeeyay ee WWE World Heavyweight Championship ciyaarta loo yaqaan Rowda sidoo kale Mr Roman waa ciyaaryahanka kaliya ee musaaracada ku sameystay magac iyo qaamuus aanu xidig kale oo isagoo dhigma aanu ka sameyn marka laga rabo ciyaaryahanka caanka ee lagu magacaabo John Cena wuxuu ku guuleystay suun walba ama bilad walba ama koob walba oo musaaracada laga dhigo ay ku guuleystay suunka caanka ee loo yaqaan World Heavyweight Championship iyo suunan fara badan oo ku guuleystay waxaana kamid ah suunka caanka ee Universal Championship iyo World Heavyweight Championship sidoo kale waxa kamid ah suunka caanka United States of America waxaana kale kamid ah suunka caanka asaguna loo yiraahdo United loo yaqaan Intercontinental Championship sidoo kale Mr Roman Reigns wuxuu ku guuleystay ciyaaraha khatarta badan ee lagu magacaabo WWE Royal Rumble match sanadkii hore ee 2018 ka bishii October 2020 Roman Reigns wuxuu shaaciyay inuu ka tagi doono ciyaaraha WWE ama musaaracada taas oo taageero badan ku sameystay wuxuu sidoo kale shaaciyay in musaaracada aanu ka fadhiisan laakiin uu ka tagi doono maalin oo ku soo noqon doono wuxuuna iska dhigay suunkiisii caanka ahaa ee loo yaqaanay Universal Championship wuxuuna macasalaamay dhammaan taageerayaashii WWE ciyaaryahanada musaaracada ay ugu horeeyeen Seth Rollins Dean Ambrose iyo Braun Strowman wuxuu kaloo sidoo kale macasalaamay dhammaan taageerayaasha WWE isla bisha uu musaaracada ka tagayna wuxuu ka qayb galay filimka caanka ee loo yaqaan Fast and Furious Show si uu uga mid noqdo matalayaasha filimka ama jilayaasha filimka waxaana musaaracada ka maqnaa kaliya 4 bilood wuuna soo noqday kadib wuxuuna yiri aan comment aad iyo aad uga masan daawashada fiidiyoga like saar comment ka soo bixi channel kana subscribe ka ilaaw